Assalaamu calaykum. Rabadaan way bilatay. Inagama xigaan waxaan ka hayn saacado yar oo kooban. Waxaana waajib nagu ah inaynu ugu diyaar garowno si nafsiyan ah una sii diyaarsano jadwal si ay Ramadaantan u noqoto Ramadaantii isbeddelka ugu bedeli lahayd nolosheena habka ugu wanaagsan kuna xaqiijino riyooyinkeena insha Allah. Waxaan idila wadaagi doonaa talooyin idin anfici doona tahayna inaad qaadato lana sii wadaag saaxiibada. Isku day mar kasta inaad 5 salaadood la tukatid jamaca haweenkana inaanay dib u dhigan ay waqtigeedu ku tukadaan. 2 inaad ilaalisid salaadaha sunnaha ah. 3 inaad ku dadaashid tukashada salaada duhada kana bilaabmayso qorax soo baxa saacad kadib ilaa bar ka hor salaada duhur uguna yartahay 2 ragcadood ilaa 8 ragcadood. 4 inaad ilaalisid adkaarta subaxii iyo habeenkiiba. 5 inaad tukatid salaada taraawiixda weliba masaajidada. Doorana imaamka aad isleedahay uu ugu cod macaan yahay si uu kaaga caawiyo khushuucda salaada. 6 inaad baxsatid sadaqo. 7 inaad ku dadaashid akhrinta quraanka ugu yaraan aad maalinkii akhrisid jis. Waxaana iska ilaalisaa in maalinku ku dhamaado adigoon quraan akhrisan sababtoo ah waa shayga kaliya ee nadiifiyo qulubta. 8 inaad ducaysatid. waxayna bisha Ramadaan ku jirtaa xilliyada ducada la aqbalo. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Waxaan rajaynayaa talooyinkaasi inay noqdaan kuwo anfaca.